aroosi kartaa inaad waa ku ogey wallaahi oo bilaahi oo talaa inaadan wax naag qanci karin waa naagtii tiri maxaa isticmaashaa wadaad baa tahay intaa rabtaa isaarnaanaysaaye ninkan imanku labadii nin hore isoo martay labada ninba diiq bay ahaayeen bay tir diiq saasay biyaha igu daadinayeen adeerde aniga Copenhagen baa inta liigu yimid oo aroos aan iska baranay baa la isii xiraday maalinkii ugu horreysay qadal la ii sameeyey maalinkiiba horaan ka raac inna lillahi wa inna ilaihi iskala seexanaysa adoo qabin ma fahanti anoo qabin baa iskala seexanayay 3 bilood gadaal baan ka meherishay wallaahi billaahi talaahi waxaan ku yiri ilmaha imaan kara nolol baa imaan karta joog gabadh yahay haddii kale waa kaa tagayaa baan ku yiri Copenhagen baan ku laabanayaa haddii kale ogolow meherka صح adeer bilaa meher baan kula deganaa adigoo xogaa aakhirada u baqay adoo aakhirada u baqay maxaa weeye noloshay haysato mid kale intaan wajiga aad ka arkaysaan ma jirkeeda kala aragteen jirkeeda kala miyaad aragteen aqas naga yaqaan adaa naga yaqaan ayeeyday baa ka jil qoxoon ayeeyday inna lillahi wa inna raaji'uun adeer waayeel weeye waayeel safar iscaan baan ahay ladcaan adeer wiilkeeda 30 jir weeyaan ku yiri dhaarkin maryahan hadda aan u galiyay anigu haarki aqas ninkii dharka ka dhiga ka sheekayn kara adeer dhiiqa hadday jirtay hadda yaa adaga u geeyo way yaa adaga u geeyo way shan naagood baan soo guursaday dhiiqa hadday jirtaan ku yiri dhiiqa hadday jirto waa ayada soo qora ninka inuu dabaal Soomaaliya idin sheega aniga laakiin Ilaahay asturay inaan dabaal hal sano la noolaado laakiin alxamdulillah inta badan xaq shaqo jiray maalinta uu naga maqay habeenkii imaana subaxina uu dhalmi jiray inta uu jooga habeenkii cunugaas uga hayn jiray marka kale taxta way caawin jiray ninkan dhanka caawinaad taxta waa ku fiican yahay guriga wax kasto nolosha kaaliska arag because naagtan quruxda badan uu rabaa jecel inuu ku abuuro laakiin jecelku waa quluubiyan ma iska imaanayo yaa jooga marka okay ninka dhahay teleefankeyga farta uga soo dhacdo oo ogeyn waa asaga maalintii aan kala tagna waa kaaga daranay bismillaah duhurtii markii laga baxay aan kala tagna wuu baxay markuu istaraasay waa tuu carray jidkii wuxuu kusii wareeray meeshuu tago dukaan uu joogaa dukaan saas u dhex fadhiya waa la badan yahay dukaanka aniga marka farta uga soo dhacdo teleefankeyga asaga fartiisa ku soo dhacday mi ogo wuxuu leeyahay naag Saleeman baan 2 sano soo qabayo wallahi weligay ayadoo bay ku korbari jirtay naagta weligay anu kama kormarin weligay hal marna kamaan kormarin hadda anigane dadku sheegno ani adiga kormari jiri adkaatay adigana yaa kormari jiri bal hadda meeshaad saaran tahay ka sheeg si toos sheer garay barnaamij adeer ana xalaaleeyay u jeedaan xajaasiyo maraya fiiri idagayso naagta iga sheekaysay ninkii furay adeer naagta ninkii furay iga sheekaysay oo tiri adigoo kala saxigaaga maana arkin ninkii furay maalmu degan yahay mid kale weligay video lama gelin gaabnida wuxuu igu dhacayaa bay tiri xuduntu igu dhacaya waa nin gaaban oo foorxun laakiin nin aan ku xaragoon karo maantaan helay bay tiri saasay aniga meediyaha ii keenta naagtan صح si toos ma adaadu nin laba lafooda ta waxa weeye inta dheer jooga waxa weeye si toos wallahi waxaan ku yiri maalinkii meediyaha gelisay waxaan ku yiri aniga nin wadaadaan hay meediyahan ma diga deysid meediyahan iga daa aad geenayso waxay tiri laba nin hore isoo furay labada nin aan kuma tii xidhay laba nin hore isoo furay shaashadii adkaatay dadkaana ma wadaan may maqashaan waa ku maqalnaa ku laba nin hore isoo furay tiri midna Mareykan buu joogaa midna halkan labada nin hal nin oo aan la geli karo video kuma jiray tiri nimankii hore caayay adeer after 5 wiil baa guriga u joogto laba maskaxad ka xanuunsan tahay oo hadda gaaladu la wareegayso hadda gaalada qaadanaysa ayada u saxiixday oo tiri ma hayn karo ma fahanti cunuga ugu yar oo 4 sano jira maalin walba waa la dilayaa labada maskaxad ka xanuunsan baa dilaysa aadiyad ama cunuga naga dilaan balay maskaxad ka xanuunsan cunuga ma naga dilaan dadka Swedishka hadda Sweden degan ee dadka u dooda waxaan gaarsiinaynaa in ilmaha yarka ee guriga jooga ee 4 jirka ee ninka maalmo jooga uu dhalay in la dilo maalin walba in la dilo oo dilo cunuga xanuunsan oo maskaxda ka xanuunsan inuu dilo commentiga xir commentiga si toos xir commentiga adeer balaya shaashada garaaca comment aadiyad adeer balaya hawlo bal qarinayay
waxa idinkeed waxa dhaxtaal baan ka dhiganaya hawlo la qarinayay oo waxa weeye ninkan uu qarinayay oo wax badan ceeb badan oo la aamusna hawlo badan inaa ogeyn ayadaa banaanka keentay waa la dhamaystiraya si toosa habeen walba qayb wey adeer caawana waxay u waalanaysaa aniga saskayga weeye waa naagtii tiri maxaa isticmaashaa wadaad baa tahay intaa rabtaa isaarnaanaysaaye ninkan imanku labadii nin hore isoo martay labada ninba diiq bay ahaayeen bay tardiiq saasay biyaha igu daadinayeen wax ma wasi kartaa inaadan waa ku ogey wallaahi oo bilaahi oo talaa inaadan wax naag qanci karin naag ma qanci kartid nacalad baana ku dhashay bahal xun oo faryarey intaas la egaa wadataa faryarey aan ka celin ma kacaayo weligay maara gusaan ka celin nacalad tula calay to maxaa wax wasay maba kacsanaysidee nin kacsanaya wax waso oo wax u raaxeeyo maxaa kacsanay adeer iga degnaagtan kaga yerisiiye waa daalay waxay iga daba ordaysa adeer ayadaa keentay gogasha in laga hadlo ma fahamti wallaahi bilaahi tallaahi inaana been sheegay shaashada garaaca waa kumiti wala nin fura shaashada garaaca hal sanaan qabay halkaas sano 6 bilood ayada nadaafadeeda iyo gurigeeda nadaafadeedan ku mashquulsanaa raaxa u timid ma waxa u timid nadaafada u timid dayactir baan u yimid dayactir laga weena aniga ninaas guursaday ninaa lacag ka qaatay waa dhacay waa ku adeegtay gurigan ku tirtirtay bambarska ilmaha ku bedeshay jikada war ani waa ogahay waa baadil waan xaq waa laakiin maanta video leedahay ninki waxa waaye ninki soo cidiis lacag galaas biya soo shub inta leeyahay keeni jira waaye mafahant anina ku adeegay soo ogahay ninki cidiis lacag galaas biya inta leeyahay biya keeni jira waaye mafahant aan maanta wuxuu waa aqaan mafahant asoo sanab u eg tiktok joogis ka rabo oo salaamaani aad u maasantiin هذا تيب توب حتى مليون بوفس ولا قربا أفكيس أوران وسوقار ما فهمت أفكيس أوران وين ما أنت دعم داوريس وحالي يرنيك وحتى مليون يوستوى إلى أنا والصوحة أنا وارون هو دائما بتلج لك هو فرك شقني سي هذا يس that's right تقول أنا عاوز الصحصان معه horta ninkaas wax badan oo runana waa sheegay wax badan oo been oo ku dar horta huufarka iyo waxyaabo kale runo meesha hawiye gabi ahaanba tolkayga dhan waxaan leeyahay alxamdulillah dhaal that's why u dhaysin mid qara nin waalan baa ka soo fakaday nin waalan baa ilaahay iga soo fakiyo eriye walaalayaal alxamdulillah dhaha maxaa idin ka halaysan والله maxaa halaysan nin waalan cadkiisa ilaahay igu reebo ilaahay ka reebo waa balaayo ka harta qeer ka harta ilaahay igu reebo cadkaaseeti ilaahay hadeesta saqiirka miskiinka laakiin gabadhiina milyuun rooble nin waalan oo waxaan ku dhahay ciil qabo oo ay soo bahdishay ay ku adeegatay ee maanta banaanka ka joogtaa dabada laadka gelisay get out my house ay tiri wiil wacaas lacado wuxuu rabay inuu dhaho cunuga saara u qaban saara loo qabtaa sheeko milyuun rooble dhashay san ku dhahay adeer dalqadeeda isii kana bax albaabka cunugayga ma u sheegi karta cunug saana loo qabtaa ma dhihi kartaa ku dhahay sheeko adeer bahdil kuma dhino intaasana kuugu dambaysay maxaa faa'iide waa baasir abaa cunuga fiiri maanta waxaa ciil qaba mataqaanaa ninka xoolihiisa maqan yahay lacagta laga dhacay guriga laga eriyey dalaaqadii laga qaatay la duleystay shalay intii la haayay lagu hor bahdilayo social media live anoo ku jiran ku bahdilayay adeer macaane ninkaas maantay adigaa ciil qabtaani wax ciilama qabin because gurigaygaan joogaa still saana u qurux badanahay anaa ku eriyey dalaaqadayda cunugayga madaxiisa kaaga qaatay eray bis aadaan cunuga saana loo qabtaa saan looma qabto ninka mustaqbalka oo damci doono ogow cunuga aniga dhalay wax muu tilmaami kartid wax dhan muu tilmaami kartid ma dhihi kartid maamka xataa inta laga dhiga xaggaa la dhigaa ma dhihi kartid waxaa kuu soo haray aniga markaan guursanayey wax walba calaf weeye calafka ilaah baa adeega laakiin naagna waa naag nolol ku jirto gaariyaha oo nadaafad leh naagna waa naag aan nadaafad lahayn oo nolosheeda baad ka carrayso fersti ay gurigeeda igu casuuntay wallaahi bilaahi tallaahi hunguri inuusu iga gelin naagtaas gurigeeda suu yahay waddanka 3 sanaan joogaa bay tiri maxaan iska habeeyaa iska kala hagaajiyaa 3 sano maahee hal sano haddaad joogtaan ku yidhi gaarinimada waa loo kala dhashaa soo wax fahamtay maaha guur baad sheegaysaaye anoo wadaadahoo masaajid ku jira bay xataa guur iga diiday taqay moonada saaxiibtinimaan kula deganaa تخيل منو دتك ما يقانانه 3 بلود markaan la deganaa waxaan ku yiri caaw haday ilmo ku yimaadaan maxaad ku fikraysaa ma wacal baarintaa inaad dhabarka saarato soo faatay ma sax aan ku xalaalsado sababtoo ah nin ilaahay ka baqayaana 3 biloodna waxa weeye rabitaanka aan rabay baa i qaaday runta wanaagsan sax ma fahanti sax sicirka ku qabtay aan kula deganaa soo faatay ma
gabadheeda yartaa Ethiopia joogta Ethiopian baa dhalay anaa biili jiray waa wicil miya wacel wey anaa biili jiray sax ku soco Ethiopian baa dhalay baan ku yiri nin Ethiopian oo soo wacaa dhalay nin dadkana waxay ku tiraahdaa aabii Norway buu joogaa aabaheed Ethiopian baa ka dhalay baan ku yiri anagoo saas ku baan meher xalaal ku qabanay xoreynay waxaan ku yiri nin reer magaalaan ahay nin xamar ku soo koray baan ahay guryaha taaro aan ka daba geeyay codkii waxay daaraysaa maalinkii ugu dambeysay soo wicis maxasta ay dhahaysay ninkaan igala hadal oo aan bahdilaayo oo dhahaysay naagta coday duubaysa adna ka duub maxaa xasuusataa codkii waaye anna iyadu waa ka duuba laakiin dadka codadkooda ma soo dhigo aniga kula hadlayo codod baan ka hayaa